niman wadaadaha gaalkacyo joog ayuu la hadl shaakir markaas wuxuu ku yiri xabadana aan nagala joojiyo waana baxayna niman kale oo sanatarra xamar joogay soo waxay dadkay la hadleen aan kamid ah ayaga maanta afkooda u joog hebel hebel inay raamar waxay yiraahdeen ninkan odaga wuxuu leeyahay wadahana loo furo inaan baxaan rabnaa oo meesha ciidamada ka saarnay waqti yaa la siiyay 3 saac subaxnimo ilaa 6 saac subaxnimo ilaa 6 saac duurnimo inta ka dhaxayda ayaad waqti u haysateen waxa la yiri qolwala walaalayaal dhiigiina cid hadda xiis u qabta inay daayada ma jirtee magaaladan inay gubato ciidan ugu jirta lama arkay oo maasantiin oo soo asaga baabuur barbakis inta looga qaad ayuu markuu xuduudda gurcaal ka bax ayuu nimankii meesha joogay inta la hadla 12 markay dhamaato wuxuu yiri xabada la bilaabo subax wanaagsan saaxiibayaal meel ka soo joogtaan u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news waana subaxnimo sabti ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 3 Oktoobar sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn idaacadeena subaxnimo waxaa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka kursiga isku haysan Xaafi Cabdi Qeydiid oo meeshii ugu sareeyay gaaray maxaa laga yiri muran hareereeyay 2 kursi oo golaha shacabka gobolada reer waqooyiga ah oo maanta la filayay Muqdisho ay ka dhacaan saraakiil dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab oo ku dhintay qarax baabuur ay sameeyeen muxuu qoorqoor faray ciidamadii shalay galab oo kula kulmay xerada militariga Gurceel iyo qoorqoor oo loo soo jeeday duulaankii ugu dambeeyay Ahlusunnah iyo dawladda Soomaaliya oo warkaas soo saartay Soomaalida lagu dhibaateeyay dalka Zimbabwe qodobadani kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacadeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena subscribe ina dhigam baleelkana taabso ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo soo dhawaada saaxiibayaal dagaalka Xaafi qoorqoor Xaafi sidoo kale Cabdi Qeydiid ayaa meeshii ugu sareeyay gaaray qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Saacad Habargidir ayaa kulnay ku yeeshay magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug waxay ka digeen kursiga Galmudug ee ka dhimanay aqalka sare inaan loo xirin cid gaar ah odayaasha ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ka dalbaday in kursiga dhiman maamulka Galmudug aqalka sare uu noqdo mid furan oo tartanka uu noqdo mid dhinacyada dhan ay u tartami karaan oo shakhsi gaar ah loo xirin madaxweyne qoorqoor ayaa la ogaaday inuu rabo in kursigaas uu xiro Cabdi Qeydiid oo aan la tartamin maadaama Cabdi Qeydiid qoorqoor ay saaxiibo yihiin waxaan ka codsanaynaa madaxweyne qoorqoor kursigan dadka ku tartamaya in cid gaar ah loo xirin qof walba codkiisa iyo nasiibkiisa uu helo wixii calaf ahna halkaas ayuu imaan doonaa ay yiraahdeen wax garadka beesha Saacad ee kursigan iska leh oo warbaahinta la hadlay waxay u soo jeedin dawladda inay ka codsadeen in la dhaafo iyo waliba gacan bidixeen iyo in ay u muuqato in Xaaf la gacan bidixeenayo Cabdi Qeydiidna la rabo in kursigan loo xiro sidoo kale waxa ay sheegeen in kursigan xaq u leeyihiin beesha reer Odwa isla markaana sanadkan ay xaq u leeyihiin sidaa darteedna aysan aqbali doonin in cid gaar loo xiro kursigan senatarka beesha Saacad waxa maanta u tartami kara jufada hoose Odwa waxaana rabaa in cadaalad loo sameeyo waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa in kursigan uu furo aan cidna loo xirin ay yiraahdeen ugu dambeyn waxay odayaasha dhaqanka dalbadeen in si furan loo tartami doono musharaxiinta kursigan loogu baaqay in cadaalad uu sameeyo madaxweyne qoorqoor isla markaana qofkii calafku noqdo uu ku soo baxo kursigan waxa ka haray tartankiisa madaxweynihii hore Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo hore digniin culus u soo jeediyay Cabdi Qeydiid kaas oo sheegay in isku dayo in qiyaamaha uu dhacayo laakiin hadda waxa muuqata in Xaaf lagu qanciyay in aqalka hoose la siin doono meeshaasna uu ka bixi doono wasiirka amniga ee Galmudug sidaas darteedna asaga uu qaadan doono kursiga Axmed Macali Fiqiih wasiirkii amniga xilkaas iska casili ku fadhiyay wagaaga kursiga beesha Saacad ee Cabdi Qeydiid iyo Xaafna halkaas ayaan kaga gudbeynaa saaxiibayaal warbixinadeena kale ayaa la eegaynaa muran ayaa hareereeyay 2 kursi oo golaha shacabka reer waqooyiga kadib Mahdi Guuleed oo la sheegay inuu rabo inqilaab inuu ku sameeyo kuraasaasi musharaxiinta kuraasa kala hob 239 iyo hob 237 iyo qaar kamid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ku eedeeyay inuu boobayo kursigan uusan xaq u lahayn xitaa inuu u tartamo waxgaradka mas'uuliyiinta beesha iska leh ayaa nasiib darro ku tilmaamay in kursigan la boobo oo la xirto waxayna maamulka doorashada gobolada waqooyi ay ku eedeeyeen qudhooda in ay in jeclaysa sameynayaan ayuu ka soo horjeestay jadwalka cilaaminta kursiga doorashada
waxgaradka iska leh beesha labadan kursi oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed iyo nin lagu magacaabo Biixi Imaamba ay la wareegeen shaqada guddiga loo xil saaray maamulka doorashada baarlamaanka Somaliland waxay si gaar ah Mahdi Guuleed lagu eedeeyay inuu adeegsanayo awoodda dawladeed ee dalka isagoo sida darteedna afduubtay kursigan xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo musharaxa leh kursigan iyo beesha uu ka soo jeedo ay ku matalay kursigan ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka ku eedeeyay inuu dalbaday in tallaabo military uu qaado asoo adeegsanaya awoodda dawladeed uu ku boobay kursigan Mahdi Guuleed ayaana lagu eedeeyay in uusan lahayn kursigan laakiin awoodda dawladeed hadda uu isticmaalayo waxayna soo jeedin beesha iska leh kursigan in ra'iisul wasaare ku-xigeenka meesha lagu ka baxo maadaama uu shaqo ku lahayn guddiga doorashada gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa shalay soo saaray jadwal kooban oo ku saabsan doorashada laba kursi oo murankoda xirka isku soo shareeray waxaana warar qaar soo baxay sheegayaan in guddiga doorashooyinka ay rabaan in jadwalka sida Mahdi Guuleed uu rabo ay u qabtaan tani oo meesha ka saari karta dhexdhexaadnimada qoorqoor faray ciidankii shalay galab oo kula kulmay xerada militariga ee ku tala Guraceel madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor oo wali ku sugan magaalada Guraceel ee gobolkaasi Galgaduud ayaa shalay galab kormeer ku tagay xerada ciidamada militariga ay ku leeyihiin halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay dagaal qarar ay ka dhacayeen madaxweynaha oo ay weelinayeen wasiiro xildhibaano Israa'iil ciidamada ayaa halkaasi u tagay soo najeediyay kelmado isugu jira dhiirigelin iyo in la beegsado Al-Sunna wuxuuna ciidamada qalabka sida ku amaanay sida hagar la'aanta guteen waajibaadkii saarnaa ciidamada ku sugnaa Guraceel oo u badnaa gorgor iyo waliba sidoo kale ciidamada qaybta 12aad oo maalmihii la soo dhaafay wajahaya dagaalka cuslaa ee qasaaraha badan geysay wuxuuna badankood u soo jeeday oo ciidamadaas oo badankood laga soo qaaday magaalada Muqdisho ayuu sheegay qoorqoor inay fariisin ka sameeysan doonaan Guraceel ayna ku sugnaan doonaan saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka xoogga General Odwa Yusuf Raage taliyaha qaybta 12aad ee militariga taliyaasha guutooyinka qaybaha kala duwan ee booliiska ayaa qayb ka ah xubnaha halkaas kula kulmay qoorqoor sidoo kale inta khudbada qoorqoor uu waday waxa uu soo jeediyay in dagaalka la wado oo kooxda Al-Sunna la ciribtiro sidoo kale xubnaha ku sugnaa halkaas waxa qaybka golaha wasiirada Galmudug xildhibaano heer federaal oo ma salaad uu ku jiro maamulka Guraceel iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhinaca kale saraakiil iyo dagaalyahano ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ku dhinteen gaari qarax ay sameynayeen wararka naga soo gaaraya markan keelina koonfurta gobolkaasi Mudug ayaa sheegay in ugu yaraan 10 xubnood oo ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab ay ku dhinteen gaari qarax ay iyagu ay diyaarinayeen gaarigan waxa uu qaraxa ku haleelay oo la sheegay inuu ka dhacay waa gaariga qarax oo haleelay ayaa la sheegay noociisu ahaa kuwa waaweyn xamuulka ah waxaana la sheegay in uu ka dhacay deegaanka qayr cade wuxuuna ku sii jeeday deegaanka Bacadweyn ee gobolkaasi Mudug halkaas oo ciidanka dawladda ay ku sugiyiin warbaahinta dawladda soo xiginaysa ila deegaanka ayaa baahisay in xubno Al-Shabaab ay ku dhinteen qaraxan oo isugu jira saraakiil iyo dagaalyahano muhiim ah oo hal guri ku jiray markaas oo gaariga qarax ay ku diyaarinayeen dadka reer biiga ka ag dhawaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay nooca qaraxa uu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso isla markaana la rumaysan yahay in kooxda Al-Shabaab ay halkaas ay ku hagayeen sidoo kale ila deegaanka ayaa sheegaya in qarax uu ahaa gaari weyn oo qarax lagu diyaarinayay kaas oo Al-Shabaab ay la damacsanayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ku sugan deegaanka Bacadweyn ee gobolkaasi Mudug Al-Shabaab ayaa marar badan oo hore sidoo kale qaraxyo ay maleegayeen ay ku qarxeen isla markaana qasaariin xoog leh ka soo gaaray bilii la soo dhaafay dad badan oo shacab ayaa ku dhintay qaraxyada miinooyinka iyo kuwa kale ee Al-Shabaab ay diyaariyaan ay ku dhuftaan goobaha ciidanka dawladdu ay joogaan Al-Shabaab ayaa haatan si buuxda u maamulaysa dhammaan deegaano hore ay kula dirireen dawladda Soomaaliya sida deegaano waaweyn oo ka mid ah gobolkaasi Mudug qayr cade Camaara Shabeelo iyo tuulooyin kale ayaa ka mid ah goobaha hadda Al-Shabaabku ay joogaan sidoo kale cabsida xoog leh ayaa soo wajahday dadka ku nool deegaanka Wasil ee gobolkaasi Mudug oo 27 Juun Al-Shabaab laga qabsaday Al-Shabaab ayaa hadda u muuqda mid gobolkaasi Mudug marka la bilaabay dhaqdhaqaaqa military ay rabaan inay ku soo rogal celiyaan ugu dambeynna ma salaad arin la yaab leh ayuu ka sheegay Sheekh Shaakir ma salaad khudbad ka jeedinaya Guraceel ayaa hadlay
xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka hadlayay xiisadda dowladda iyo ururka ahlu sunna ayaa beeniyey in wadahadal kooxda ahlu sunna looga saaray magaalada Gurceel asagoo sheegay in awood military lagu muquuriyay mahad salaad oo khudbad jeedin ayaa sheegay in Sheekh Shaakir uu dadka khiyaano weyn uu sameeyay khiyaanadaas uu sheegay in ay helay wax ku marhabaabiyay dhalinyarada Gurceel waxaan soo gudbin doonaa khudbadii mahad salaad oo aad u kooban ayadana ugu dambeyn doonto idaacaddeena subaxnimo saakiin nabadgelyo dad dhalinyaro iyo dad reemiyaha meeshan lagu soo xaray waxa la yiri jihaad ayaa galaysiin jannana ku helid maalin dagaalku markuu bilowdo laba maalmood oo socod maalinkii labaad xad inay heedaan u malayna niman wadaadaha gaalka ay joog ayuu la hadl Shaakir markaas wuxuu ku yiri xabadana aan nagala joojiyo waana baxayna niman kale oo sanatara xamar joogay soo waxay dadkay la hadleen aan kamid aha ayaga maanta afkooda u joogay hebel inay raamar waxay yiraahdeen ninkan odaga wuxuu leeyahay wadahana loo furo inaan baxaan rabnaa oo meesha ciidamada ka saarnay waqti yaa la siiyay 3 saac subaxnimo ilaa 6 saac subaxnimo ilaa 6 saac duurnimo inta ka dhaxayda ayaad waqti u haysateen waxa la yiri qulqulo walaalayaal dhiigiina cid hadda xiis u qabta inay daayada ma jirteen magaaladan inay gubato ciidan ugu jirta lama arkay oo maasantiin oo u soo asaga baawur barbakis inta looga qaad ayuu markuu xuduudda Gurceel ka baxay ayuu nimankii meesha joogay inta la hadla 12 markay dhamaato wuxuu yiri xabada la bilaabo shantii maalmood ee meesha ku jireen jihaadka asagoo uu ka cararay oo jannadiisa uu ka cararo huursho uu ka joog ayuu horta kuwan ku gubay oo la jihaad ku jirtiin jihaad hadii jihaad meesha yaala ma yimaado asagoo ku dhinto oo diyaar u noqdo sida wiilasha u laanayaan u laa waxa intaas oo dhan ka sii dar beenta iyo propagandada iyo wax laga sheekeynayo oo qof islaamnimo sheega xataa inuu ku hadlo qalad ay wuxuu yiri meeshan wada hadal aan nagala saarayo waxaana la yiri taga buhul huursho inta ka yimid oo intii ka hartay intii meeshan ka baxay oo niman odayaal ah oo qabiil oo isxil qaamay oo ganacsataa inta u yimaadeen ay yiraahdeen war lafooda aan badbaadina ninkii waa ka tagay oo meeshan ka bixiyo habeenkii ka dheelmiyay oo buhul inta uga daba tagay wuxuu yiri dawladdu waa ila hadashayo wada hadal aan galayo ayagiya soo socdo waa nala dhex galaahay meeshiina ku nagaada intaan power sharing siyaasadeed ka galay cidii la heshiida ama la hadashay xagee joogta dawladii galmudug waa tan ama ka hadash saraakiisha ciidamada waa kuwana waa joogaan ama ka hadlaan cid warkooda wadamiyaad aragteen oo idin la wada hadal meesha looga saarayo siyaasadda la galo meel hablaaya dagaaliyo nimanka horta shaarka diimeed inta gashada wadaadada sheeganaya waa dadka horta saas u dhaqmay dadkii gaalaysiinaya gabdhihii ka furaya lagu jihaado hal dilale beenta saas u daldalaya jihaad beenaho jirin caruurta inta u sheegan ayagu ka dhuumanaya way ilaahay idin soo hanuuniyaan laan ana wax kale idin dhaana ma naqaan waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka dhalinyarada ee la qalday ee meeshaas lagu xareeyay walaalayaal waxaan idin leenahay dadkiina iyo deegaanadiina u soo laabta wax dambiyood leedihiin lama arko dada idin qalday beena la idin sheegay waa la idin rabaa cid idin raacdaysanaysa ma jirto deegaanadiina ku soo laabta dadkiina ku soo laabta ummadiina wax la qabtiina idin laan hal qof wax yeelaya ama wuxuu dhimayana ma jiro madaxweynuhuna waa ka hadlay saraakiishuna waa ka hadleen annaguna marka aan ku celinayna deegaanadiina iyo dadkiina ku soo laabtaan leen ayagana dhibaatadii deegaanka ay ka geysteen iyo midii dadka ay u geysteen waa laga la xisaabtamaa insha Allah haday nool yihiin haday aakhira tagaana tii aakhira u taal xisaabteeda insha Allah waxaan kaloo rabaa runtii inaan meeshaan fariin uga diro dadka siyaasiyiinta ee galmudug ka soo jeeda ee raba inay siyaasadeeyaan jiritaanka galmudug waxaan leenahay walaalayaal ilaahay aqliga idin soo celi galmudug raas Soomaali anaga noota waa maamul aan wada leenahay waa maamul aan wada dhisanay qofku waa xumaa kara waa fiicnaa kara waa iska bedeli karta waa dooro karta nidaam iyo wada loo mar ayuu leeyahay laakiin inaad dhahdo galmudug aan jiridada u siibayna oo aan dhulka ku dhufanayna cid laga aqbalaya ma jirto madaxweyne Axmed Qoorqoor ani asoo isku xisbi mani siyaasadda federaalka marka la joogana isku aragti mani oo isku siyaasad mani laakiin waxa naga dhaxayda galmudug deegaanka madaxweynaha oo ka yahay aniga xildhibaan u ah waa inaan ka shaqeeyo maslaxadiisa hadii uu ka shaqeynayo asagii marka uu taagan yahay difaaci ee galmudug oo u taagan yahay horumarinta maamulka iyo adeegyadii bulshada ee maamulka oo u taagan yahay inuu ka difaaco cadawga ku soo duulay مقفى وحوليه هي أسجع عركتي أسوق خلاف سنة لبضل لغة أنت كود دجنه أنجل مدرسالك لوك أقول فانا مية لليه عد لقى أقبل يلا ما أركو حكمتنا معهن وحقف بنا آدنا أنت كل صدع وصوري كرنا معه ولا ريال أحمد غرغر وقت يرى أوهر
doorashii aaday galmudug beelihii dhisto 11 ay u laabane xildhibaanada la soo xulana madaxweyne iyo baarlamaanka la doorana qofkii han oo uga jira galmudug iyo deegaankan inuu u danaynayo maskaxdiisa ay ku jirto waxaan leenahay galmudug ku cayaarinine walaalayaal maalinkiina u soo diyaar garooba doorashada dhinaciina ka gal si maalinkii qofkii siyaasad ka dan leh oo ugu guuleysta asagana loola shaqeeyo gacanta looga qabto ayagana baaqaas aan u diraynaa aad iyo aad u mahadsantihiin